waqti uu hogaaminayo safiirka u qaabilsan midowga Yurub arrimaha Soomaaliya Michael Carafoon ayaa maanta soo gaaray magaalada Garowe xarunta waxaana kuna albaabada u xunaya kula qaata xarunta madaxtooyada Puntland madaxweynaha maamulka Puntland iyo wasiir ka tirsan xukuumaddiisa kulankaas kadib si wada jiraya labada dhinac warbaahinta ula hadleen waxayna sheegeen ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa wada shaqaynta horumarka dalka ka socda iyo waliba la dagaalanka burcadbadeedka iyo kor u qaadista tayada wasaaradaha madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Farool oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in ka wada hadleen barnaamij cusub oo ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa hay'adaha qaabilsan la dagaalanka burcadbadeedka si looga hortago falalka foosha xun ee qaadiyo kooxahaasi burcadbadeedka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaa maanta halkan noogu yimi wafdi ballaaran oo ka socda midowga Yurub oo hogaaminaya ambassador Michael Carafoon oo u qaabilsan Soomaaliya Yurubka midowga Yurub oo xawar hadda ka soo noqday oo geeyay credentialkiisii ama waraaqiisii aqoonsiga geeyay iyo la socdo Admiral Loney oo qaabilsan waxa loo magacaabo Regional Maritime Capacity Building oo qaabilsan geeska Afrika iyo bariga Afrika cudurkan virusiga ay ka wadaan capacity building looga sameeyo gacan ka geysta waftiga ballaaran waxay noogu yimaadeen booqasho rasmi ah markii safiirka loo soo magacaabay Soomaaliya si aan uga wada hadalno bal sida wax looga wada qabsan karaayo la dirirka burcadbadeedda iyo sida burcadbadeedka iyo sidii looga caawin karayaan ciidamada burcadbadeedda la diriraya sidii gacan loo siin lahaa ama waxa loo yaqaan capacity building aan uga wada shaqayn lahayn sidii dhibaatadaas looga sifayn lahaa dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolkeena oo ah meel strategically ay jecel yihiin inay ka ugaarsadaan badama ay isugu yimaadaan badaha midaan khaliijka Cadan iyo badan Arabian Sea loo yaqaan iyo badan Indian Ocean inta ay isugu yimaadaan inaguna aynu dagaal xoog leh ka galnay ciidamadeena baduna ay joogaan meelo badan oo xeebaha bariga iyo geeska meesha ay joogaan iyo magaalada Boosaaso saldhigi weyna ah wada shaqayntaas horena aan wada lahayn haddana aan sii xoojinayno oo ku soo beegantay in nin cusub loo soo magacaabo oo admiraal ah inuu ka shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa loona xoojin lahaa ciidamada la dagaalamaya burcadbadeedda iyo safiirka cusub ee Soomaaliya aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa si fiican baan isku afgaranay inaan wax wada qabsano oo aanu gacan yar naga siiyaan anaguna hawlaha qabanno sidii wadanka looga sifeyn lahaa burcadbadeeddaas aafisay deegaankeena iyo Soomaaliya dhamahan iyo adduunka safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Michael Carafoon oo dhankiisa hadal qaatay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay maantikiisa magaalada Garowe wuxuuna sheegay in midowga Yurub uu Soomaaliya la garab taagan yahay taageero ballaaran oo kala duwan si loo horumariyo kaabayaasha kala duwan ee dalka. For the first time the EU is discussing regional maritime capacity building with the Puntland authorities. We have had very fruitful discussions today listening to what are the needs of the Puntland authorities and seeing how we can best respond. I would like to take this opportunity once again to emphasize the important role of Puntland in the fight against piracy. It is located, as the President mentioned, in a key geostrategic area. We very much hope to be working increasingly closely with your authorities and in the coming weeks of waa markii labaad uu socdaal shaqo ku yimaada safiirka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya magaalada Garowe kaas oo salka ku haya socdaalkiisa sidii loola diril lahaa falalka ay sameynayaan kooxaha burcadbadeedka ee Soomaalida Cali Cabdi Casiis Ducaale warbaahinta dunida online magaalada Garowe.